xukuumadda Somaliland ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay hadal madaxweynaha Soomaaliya uu ku sheegay in ay soo dhowdahay waqtigii ay midoobi lahaayeen Somaliland iyo Soomaaliya isla markaana dib loo bilaabi doono wada hadaladii u socday labada dhinac oo uu sheegay in wadada ay xaari karaan midowga Somaliland iyo Soomaaliya. Afhayeenka madaxtooyada Somaliland Xuseen Aadan Ciga Deyr oo Saab TV kula hadlay qasriga madaxtooyada waxa uu hadalka madaxweyne Farmaajo ku tilmaamay mid aan sal iyo raad toona lahayn. waxaana afhayeenku uu sheegay in wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya ay bilaabmi karaan oo kaliya haddii ay noqdaan kuwa ay ka dhex muuqato in Soomaaliya ay garowsanayso gooni isu taagga Somaliland oo uu ku tilmaamay wadan guuleystay oo horumar badan gaadhay. hadalka ka soo yeeray madaxweynaha dawladda Soomaaliya waa hadal aan sal iyo raad toona lahayn. Somaliland waa qaran guuleystay oo ku guuleystay ummadiisa inuu horseedo nabad deganaansho iyo kala dambeyn lagu dhaqmo sharciga iyo dastuurku sidoo dhigayo waa qaran ku guuleystay in ummadiisu ay xor u tahay cid ay xilka u dhiibanayaan nin xamar midayn kari waayay Somaliland iyo Soomaaliya sidoo u midaynayo oo kala tagay ayaa isweydiin leh Masar Farmaajo waxa uu yaala inuu xaafadaha xamar ee kala qaybsan ee mashaakilaadku 26 sanadood in ka badan ba ay ka taagan yihiin inuu u meeldayo inuu tiisa ka adkaado oo uu taayada faraha ka qaado waxaan leenahay wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya u dhaxeeya mid bay ku bilaabmi karaan waxa weeye in laga wada hadlo qarannimada iyo goonistaga Jamhuuriyadda Somaliland maaha midow lagama wada hadlayo waxa laga wada hadlayaa haddii ay dib u furmaan sidii ay Somaliland qaran xor ah oo ka madax bannaan Soomaaliya u noqon lahayd iyuunba laga wada hadlayaa. Afhayeenka madaxtooyada Somaliland waxa uu Soomaaliya u soo jeediyay inay ka waantowdo xusaska munaasabadaha gaarka ah Somaliland sida munaasabada maalinta 26 Juun oo uu sheegay inay tahay maalin Somaliland ay gaar u leedahay. Xuseen Aadan Ciga Deyr afhayeenka madaxtooyada Somaliland waxa uu xukuumaddiisa ka difaacay eedeymo uga imanayay mucaaradka oo ku saabsan safarka gaarka ah ee madaxweynaha Somaliland uu ku joogo wadanka isu taga Imaaraadka Carabta isla markaana la sheegay inay ka daba tageen raxan wasiir ah oo aan markii hore safarka ku helin. Horta wasiiradu ma kala weynaa ee wasaaradaha ayaa kala weyn wasiir maqanina wasaaradii muu qaadanin oo meeshu ku maqan yahay ee wadanaha qaranka uu ka fulinayo wasaaradii muu qaadan wasaaradihii wasiir dawlayaashii wasiir ku-xigeenadii agaasimayaashii guud iyo maamulkii wasaaraduhuba dhammaan way joogaan dhowrka wasiir ee maqana qaarna cibaaday ku maqnaayeen oo madaxweynaha oo nasasho ugu maqan Imaaraadka ayay ku soo mareen kuwa kalena hawlo qaranku leeyihiin bay dibadda ugu maqan yihiin madaxweynuhuna meel kasta oo uu joogo haddii uu safar gaar ku joogo iyo haddii uu nasasho ku joogaba danaha qaranka meel kasta oo uu ka fulin karaba uu ka fulinaya. mudane afhayeen waxa kale oo la sheegayaa oo aad loo hadalhayaa madaxtooyadu in shir ay la qaadatay agaasimayaashii guud ee wasaaradaha oo loo sheegay in mushaharooyinkii shaqaalaha la joojiyay inta doorasho ka dhacayso sida hadallada loo dhigay arinta iyada maxaa ka jira arintaasi waa war aan sal iyo raatoona lahayn wax mushahar la joojiyay iyo waxay madaxtooyadu ay la shirtay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha iyo hay'adaha madaxa bannaan ma jirto shaqaaluhuna xaq bay u leeyihiin mushaharkooda inay helaan waa inay qaateen waa inay helayaan waba yaraatay wax crisis oo dalka ka taagan. Nuruddin Abdullahi Culi Joog Saab TV Hargeysa.